Somaliland waa dal yar oo nabdoon oo ku yaala mandaqada ay hadhaysay mushkilada kala duwan. Waxa uu daris leeyahay dalalka Itoobiya, Soomaaliya, Jabuuti iyo waliba dalka Yemen ay wadaagaan biyaha badda cas. Dalalkaas oo la daalaa dhacayo duruufo kala duwan, colaado sokeeye, ururo argagixiso, nidaamyo kala talisa iyo falal burcadbadeednimo oo Somaliland ka nabad gashay 30 sano ay jirtay. Wadanka Soomaaliya ee Somaliland hore uga go'day sanadkii 1991 waxaa la degay colaado sokeeye isagoo xudun u noqday inuu argagixisay ugu weyn bariga Afrika oo xarakada Al-Shabaab. Dhanka kale dalka Yemen waxaa ka qarxay dagaalo sokeeye kadib markii la riday nidaamkii Cali Cabdulla Saalax oo dalkaasi soo xukumayay muddo aad u dheer. wadamada Jabuuti iyo Itoobiya kama jirto nidaamka dimuqraadiga ee Somaliland ku caanamashay. Dad badan ayaa ku dhaliilaya Somaliland inay ka gaabisay nidaamka dimuqraadiyadda ay ku fidiso mandaqada ay ku taalo, iyagoo taa beddelkeeda walaac ka muujiyay dimuqraadiyadda xurdinka ee Somaliland ay manjaxaabiso diktatoriyadda guunka ka jirta gobolka Geeska Afrika.